Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wanaagsan nabada wadayaal ku soo dhawaada warka wadajir news qodobada ugu waaweyn ee aan faahfaahin doono waxa kamid ah wasiirkii labaad ee farmaajo saaxiib la ahay oo xil sare loo magacaabay qoor oo qaaday jidka muddo-kororsiga iyo beelaha galmudug oo waxba kama jiraan ku tilmaamay muddo-kororsiga qoor Xasan Sheekh Maxamuud oo beesha galmaax Yunus ku qanciyay xilka muhiimsan gobolka Banaadir inuu siinayo iyo Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo diiday inuu la kulmo Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gare qodobadaas ayaan faahfaahin doonaa hadii laga helay baweyne waa 12 bisha 9aad 2022 inagala qayb qaata daawadayaal faafinta warkan idinku ku share gareynaya saaxiibadeen iyo baraha bulshada waana ku maasan tahay hadii aad aragtid nagu dhaabtay qaybta commentiga ee hoose waa hagaag isku soo laabasho wanaagsan oo xiiso leh xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta kula xasaasi oo kule magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxaana jira shaki weyn oo hareeyay ajidaha kulankaasi xildhibaanada golaha wakiilada galmudug ayaa maanta dood xoogan ka yeelan doona qorshaha dib u eegista dastuurka galmudug kadib soo jeedin ka timid xubnaha guddiga dastuurka dib u siinta iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka maamulka galmudug intaas kadib guddiga joogtada ah ee baarlamaanka galmudug ayaa go'aamiyay in arrintaasi loo gudbiyo golaha oo isla maanta ay ka hadli doonaan guddiga dastuurka ah dib u siinta iyo arrimaha gudaha baarlamaanka ayaa soo jeediyay qorshe wax looga bedelayo dastuurka galmudug dood iyo falqan kadib guddiga joogtada ah ee baarlamaanka galmudug ayaa go'aamiyay in 22 September la horgeeyo qorshaha wax ka bedelka dastuurka golaha guud ee baarlamaanka galmudug ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay guddiga soo diyaariyay ajendaha kulanka dhaqdhaqaaqyadan igwadan xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa waxa ka dhashay shaki iyadoo laga cabsi qabo in goluhu ay ku dhawaaqdo muddo kordhin hal sano ah oo loo sameynayo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye si la mid ah hogaamiyaasha dowlad goboleedka Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo haatan min hal sano loogu daray hadii baarlamaanka galmudug ka dhabeeya arrintaasi waxa ka sii dhici doona buuq ka dhashay muddo-kororsiga oo dhawaanaha sameysteen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada walo ilaa hadaysan ka hadlin dowladda federaalka Soomaaliya si kastaba dhaqaaqyada ka socda Dhuusamareeb ayaa ku soo aadaya xilli haatan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ku shirsan yihiin magaalada Muqdisho ka oo shirka looga hadlayo xaaladaha dalka ay arrimaha soo kordhay dhanka kalena wararkeena kale waxa kamid ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta daafuray tababar loo qabtay golayaasha deegaanada doorashada ku yimid iyo arrimaha dimuqraadiyadda kaasoo maanta lagu qabtay magaalada Garowe kadib Saciid Dani oo halkaas ka jeediyay khudbad ayaa si weyn uga hadlay kooxdii soo dhisay asaga ee Aaran oo hadda kala dhoobay isla markaan ah waqtiga iyo waayuhu uu kala geeyay madaxweyne Dani ayaa yiri koox gaar ah oo wada socota ma maamul karaan Puntland isagoo hadalkiisii wata ayuu yiri waxa jira dad siyaasadda u soo galay inay ka shaqeystaan waxaana ka digaya kuwa u soo galaya in siyaasadda ka macaashaan hafurtaan shaqooyin gaar ah iyo ganacsiyo halka ayaa ah madfici ugu horeeyay Dani ku rido kooxda la shaqeysay xilliga u baahnay oo laha doorashada Puntland ay ku jiray sanadkii 2018 xildhibaan Cali Xoosh ayaa bilaabay weerar ka imaanaya kooxda Aaran wuxuuna markii horeysay madaxweyne Dani ku tilmaamay nin iimaan ka tagay dhanka kale waxa la isweydiinayaa kooxda Aaran sidii midowga u noqon lahayd waxaana muuqata hadda in wasiirka maaliyadda Xasan Abgaal uu doonayo inuu xilkaasi hayo inta la gaarayo waqtiga oo laha doorashada Puntland toddobaadkan ayuu Dani xilka ka qaaday Cabdiweli Said wasiir ku-xigeenkii wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasiir dowliye madaxtooyada oo labadaba xariidhow la ahay Maxamuud Shido oo farxadda holka baarlamaanka Liilmey kadib doorashada Saciid Dani sidoo kale waxa shaqadii baneeyay Cabdiweli Timcade oo kamid ahay kuwa kaaga dhawa Saciid Cabdullaahi Dani waxa la filayaa in toddobaadyadaan si xoogaysato dagaalka siyaasadeed ee ka dhex qarxay shirkadii siyaasadeed ee dalka la wareegtay sanadii 2019 ugu dambeyntii markii la eego damaca kala duwan ee kooxda Aaran waxa la isweydiinayaa sida Puntland marka tirada u qaban lahaayeen wararkeena kale waxa kamid ah daawadayaal wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo kamid ahay
saaxiibadii kaaga dhawaa madaxweyne Farmaajo 5 sano la soo dhaafay ayaa noqday ergeyga gaarka Afrika u qaabilsan ururka Islaamka gaar ahaan qaybta suugaanta cunnada Islaamka xilka sare ee loo magacaabay mas'uulkii labaad oo kamid ah مسؤوليتي كاغا دوا مدحوينه فرماجو ayaa wuxuu noqonayaa Saciid Xuseen Ciid hay'adda sugnaanta cunnada Islaamka ayaa Saciid Xuseen Ciid u magacaabay ergey gaarka Afrika xogaha hay'adda sugnaanta cunnada Islaamka ayaa sheegay in hay'addu ku soo dhaweynayo mudane Saciid Xuseen Ciid wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya waxa loo magacaabay ergey gaarka Afrika hay'adda badqabka cunnada Islaamka qoraal rasmi ah oo ka soo baxay hay'adda ayaa lagu yiri waxaan aad ugu faraxsanahay in hay'adda ku soo dhaweyno mudane Saciid Xuseen Ciid isagoo ah ergey gaarka Afrika u qaabilsan ururka Islaamka gaar ahaan qaybta sugnaanta cunnada Islaamka wasiirka hore ee qorsheynta mudane Jamaal Maxamed Xasan ayaa isna sidoo kale xilsa looga magacaabay golaha igad daawadayaal wararkeena kale waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fila Soomaaliya kula kulmay siyaasiyiinta odayaasha iyo xildhibaanada beesha Galmaax Yunis oo cabasho ka habka uu maariyay magacaabista gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir beesha Galmaax Yunis ayaa madaxweynaha hore ugu eedeysay inuu kaga baxay ballan oo ka qaado oo ahayd inuu sii doono xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda magaalada Muqdisho kaasoo markii dambe loo magacaabay Yuusuf Madaale oo ka soo jeeda beesha Daawud Galmaax Yunis iyo Daawud ayaa labadaba ka tirsan beesha Wacabuudin Abgal kulanka ka dhacay fila Soomaaliya ayaa xubnaha ka qayb galay waxay noo sheegeen in Xasan Sheekh Maxamuud oo ka garaaba arrintaas isla markaana uu raaligelin buuxda siiyay isagoo u ballan qaaday inuu si kale u xalin doono tabashada beesha Galmaax Yunis xubnaha beesha Galmaax Yunis ee kulanka qayb galay ayaa Xasan Sheekh Maxamuud u gudbiyay liis xal ah oo doonayaan inuu madaxweynaha u magacaabo haddii uusan xilka gudoomiyaha ka soo celin karin Yuusuf Madaale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu ballan qaaday inuu arrintaas sixi doono isla markaana xilal kale oo u magacaabi doono beesha Galmaax Yunis inkastoo mas'uuliyiinta qaarkood ay shaki geliyeen sababaha loo xaliyay beesha Galmaax Yunis ayaa aad uga cadhootay Xasan Sheekh Maxamuud oo aad u difaacay una dagaalameen markii lagu soo weeraray Miranaayo bishii Abriil 2021 markuu dhacay dagaalkii looga soo horjeeday muddo kororsiga macda sababta Xasan Sheekh Maxamuud ballanka baxa ugu sameeyay beesha Galmaax Yunis hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inuu caasi kaga timid kooxda UPD iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasiyiinta Galmaax ayaa ku ballamay kulan labaad oo lagu dhameynayo xiisada guud ahaan daawadayaal halkaas aan ku soo gabagabeynaa wararka wadajirna